caruur yaryar ayaa waalidkoodii ama reerkoodii laga qaatay iyaga oo rabadaanta sooman darteed. waxaan doonayaa haddaba inaan idinku baraarujiyo haddii caruurtaada ay iskuulkii wali dhigtaan alxamdulillah annaga fasaxyaa lagu jiraa marka hadduu xataa ilmuhu doonayo inuu tijaabiyo gurigoodiibu iska dhex joogaa. haddii uu ilmahaagu iskuul tegayo oo markaa uu doonayo inuu soonkii tijaabiyo quraacdiisii iyo cuntadiisii caadiga ahayd ugu sii rida shandadaha. haddii hadhow markaa ay xejin waayaan oo ay rabaan markaa inay jebiyaan oo ilmihii degaajadii ay ka tanbadato ilan waqti lagu leeyahayba weli may gaadhin ilmaha 10 jir iyo wixii ka yara ahaye si ay u helaan waxay cunaan. ha u dirina caruurta iyagoo soon tijaabinaya iskuulka idinkoon caruurta ugu sii ridin cunto meesha. si kastoo uu sooman yahay waa ina cuntadiisa u baagaraysaan si markaa hadduu xejin waayo uu cuno idinkana wax dhibiya wax eede aana idinkaga iman. waxaa la sheegay caruurtan inay yidhaahdeen buuq iyo qayla iga dhinac baxaysa oo ay fasax baa lagu jiraa. waxaa la sheegay caruurtan inay yidhaahdeen gaajaana hayso hooyana noogumay soo ridin cunto waayo waan soomanna waxay nagu tiri sooma. haddaba arrinkaa ka taxadira haddii weli iskuullada laydiin tago oo ugu rida caruurta shandadahooda wax.